Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh dhammaan akhyaartayda waan salaamay cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sidaan ugu soo degsan lahayn file mega storage waxaa su-aashan soo weydiiyey Faisal oo dhahay bro fileka ima soo degaayo camal linkiga marka ku dhufatid sidaan ayuu kugu soo baxaa shirkadda marka waxay sameysay in fileka computerkaaga si toos ah ugu soo update gareeyo download ayaa leedahay kadib wuxuu kuu diraa softwarekeeda khaaska inaad computerkaaga ku shubtid ayaa kuu diraa wax yar sug kadibna download now dheh kadib browserka wuxuu ku siinaa inaad content GB of free ah computerkaaga ku shubatid sawiro faylal wax harta ku shuban kartaa markaan hore igu download gareysanahay kadib okay aan leeyahay kadibna open aan leeyahay browserka hoos ka dhig faylasha artid ayaa ku shuban kartaa computerka si hadhow markasta u baahatid computerkaaga dib ugu soo shubtid marka wax yar aan sugno dib ayuu ugu shubanaa next agree next install intaas way fududahay qofkii badanaa computerka aad u isticmaal next install oo inta badan wuu fahmaa kadibna finish ayaa leedahay kadibna double click ayaa siinaysaa desktop kusoo dhigaa markaa siisid isla markii taski barka ayuu kusoo galaa marka soo galaba ujeeda uu soo galay kadibna failkii hadday download gareysatay ayuu ku leeyahay haddii kale waxaa samayn kartaa website browser ku laabo fresh dheh ama F5 taabo keyboardkaaga kadibna wuxuu ku sameynaa inuu kadib fresh dhaho kadib download aad leedahay kadib failku wuu soo degaa iyo okay aad leedahay markaan furno failkii wuu ku soo degaa si toos ah ujeeda failkii isla markii wuu soo degay haddii aad rabtid inaad fail ku furtid right click ayaa leedahay kadibna show ayaa leedahay kadib markuu failku ku furaa kadibna failka sidaas ay kugu soo downgareynaa marka browserkan wuxuu ku siinaa ilaa content GB of free ah inaad failasha ku shubi kartid marka insha Allah bidna karim su-aashana kaga jawaab rajayna insha Allah bidna ka fahantay Faisal Maxamed waa ku mahadsantahay kumankaaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wa jazaakum allahu khayran